الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كسو لواada asxaabta sharafta mudan waa mar kale iyo isxasuusinteeni axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta xadiiska wuxuu noqon doonaa insha Allah xadiis uu soo saaray Anas radiyallahu anhu oo ku sugan sahih al-Bukhari iyo Muslim iyo غيرkiiba xadiiskaasi waxa weeyaan ثلاث من كنا وجد حلاوة الإيمان أن يحب الله ورسوله مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حديث كاسم عني سوى حويان صدح إذن كم ذا وحلقة معانك إيمانك أيا لقه معانك إيمانك يعني أي دمية معانك إيمانك ما يعني سيدا سكرت أما ملب أو كلام معها معانك إيمانك أنت لما سويرته أي أقدرنتا إن قدبك كبار إن وقفك كتش على هذا إلهي رسول كيسة وحلا وحكسك يقول إلهي جعل كيسة سبحانه وتعالى بل واحد سودي سا واحد هيقف عافمات قبا واحد هيقف يعني لما يسترن لحديث اللي حضر ليهين واحد هيقف نرش يعني وحبا عن البات هيسن يأكو سامحي حبلها يأكو سيي أرجع يأكو سيي لما حبلها أول يأكو سيي إلهي بكو سيي عافماتك إلهي بكو سيي مركع أنت حسوته وحكوا شبين إلهي جعلاته يعني قف عد والبوح بالبو جعلاته سما ويفربضن تجعلك إلهي سويس لكن وحكوا قف له كليته يعني أرجع يحبناها لما أنتم nabiga kaleey salaatu wasalaam jacaylkiisa maxaad ku kasban kartaa way farabadan tahay laakiin waxa kugu filan oo keetana jaclaato nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof umada loo soo diray yaani jaclaa inay ka badbaadaan naarta umada loo soo diray nabi maxamed islaam iyo gaal buu ahaayeen umadiisi weeyaan iyagoo gaalaba umadiisi tahay nabi maxamed salaatu wasalaam laakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam aad buu karaahiyesanay in qof yani uu dhinto gaal ah isagoo aan muslimin aad buu jeclaa umadiisa nabi kaleey salaatu wasalaam yani qof kula jecel inaad ka badbaado naar oo aad gasho janno miyaad jeclaanay marka laga tago wax ka fara badan ba jacaylka u kale qofka aad yani qofka shakhsiga ah qof shakhsi ha noqdo waalidkaaga ha noqdo xaaskaaga ha noqdo walaalada ha noqdo qof kale asxaabtada ha noqdo jacayl aad iska jeclaatay isagoo aan dar ilaahay ahayn jacayl ma hakaas yani iimaankii bay soo galaysaa inaad qofka dar ilaahay u jeclaato qofka ma aha inaad maalkiisa ku jeclaato ma aha inaad quruxdiisa ku jeclaato ma aha inaad asbaabo kale oo adduunyo ku saabsan ku jeclaato qofka aad ku jeclaato maanta markaad aragto isagoo cibaadeysanaya ilaahay ka cabsoonaya dhaqanka wanaagsan ee uu leeyahay inta markaad ku jeclaato waa dar ilaahay bay ka tahay laakiin hadda waxyaabo inta aan dhaafsan ku jeclaato oo adduunyo ah ma aha kaasi dar ilaahay qodobka saddexaad waxa weeyaan qofku inuu ku noqdo gaalnimo sidoo u neceb yahay in lagu rido naar subhanallah inagu maanta dadkeena maanta qofku hooyadii aabihii iyagoo islaam ah uu dhashaa gaalnimo waxba kama soo arag qofka taasi waxa dareemi kara gaal markii hore ahaay markii dambe islaamay maanta xadiiskeena in kala faahfaahina intaas ku soo gabagaynaa ilaahay ha naga dhigo kuwii uu anfaco aniga nafteeda ka bilaaba iyo nafaheena dhamaantood wassalaamu calaykum wa rahmatullahi